السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله الصوماليات وأنا السلام يا سلام سلام كان كل سلامي وحوي ولاشين حمراء ما أنتم حايدين هايسا وح هري أي إدين كسو جلسي أو محنك أي إدين تستي أو إدين بريسي سيدا لو بيرو نوع أوبحان أو كله marka waxa weeye sida aan waan idin tusay anigoo soo jaraya fiidiyoogayga faloode kii hore aan soo gashay sidii aan u beeray waxa weeye waxaan ka soo gooyay dibadda oo ubax dibadda ku yaalo oo horteena ah sidaan kan u beeray ayaan idin tusay anigoo beeraya oo talaal oo kale maxaa la dhahaa isku maxaa la yiraahdaa intaan ka dhahay aan mariyay labadan waxood waa huruud waa ujeedaan waa huruuddaasaan gashay intaan ka dhahay laanta intaan jaray baan huruuddaas gashay oo ciidda geliyey kana waxaa malab intaan malabkaas meel ku shubay oon saa u mariyey laanti ayaan ciidda gashay iyadana marka labadii waxa weeye ubaxaan sidaan u beeray waan idin soo tusay broofki weeye marka maanta waxaan idin hayaa broofki inuu soo baxay ayaan idin hayaa bismillah maxaa ujeedaan yaa ahla soomaal maxaad ujeedaan maalin dhaweeda kulaylkii ayaa maxaan ku dhahdaa sidaas hadda u galay caleemaha way ka badnaayeen intaan kulaylkii kulayl aad u xun ayaa noo jiray daas waay waxaan ku dhahaa caleenta ay u yara madmadoobaatay qaar waa ujeedaan maxaa aragtaan inuu soo baxay ma ujeedaan oo kaa caleen uu baxshay oo kaa kuwo kale ay soo baxayaan si xididuu baxshay waa ujeedaan xididada hoosta ciidda ma ujeedaan caleen kale halkaas ka soo baxaysa qofkii ujeeda greenka haddaa ujeedaan si marka walaalahayga waxa weeye waa broofki geedkan sidaan u beeray kana waxaan uga dhigay like nursery oo kale waxaan uga dhigay maxaan ku rahdaa si u cayayaanka iyo waxa dulduulaya waxaa jira waxyaalo dulduulo oo geedaha ku dhasho oo qaar baalal madmadow leh qaar baalal cadcad leh marka maxaan ku rahdaa waan uga daboolay waa ujeedaan broofki maxaa aragtaan si broofka ma ujeedaan hoostana waan idin tusay marka waxaa weeye walaalayaal oo sidaasaa dhirta geedkan aan u beeray dhirtana sidaasaan u beeran karnaa haddaan Soomaali nahay sidaas maaragtay ayaan u beeran karnaa again dhirteennii hore naga sii dabar go-aysa sidaas ayaan u beeran karnaa yaa ahlu Soomaal marka aan ka faa'iidaysta maxaan ku rahdaa aanu dhirteenni soo celino dhirteenni maxaan ku rahdaa ii sheeg dabar go'day dhirteenni la jaray dhirteenni la xasuuqay dhirteenni maxaan ku rahdaa dhuxusha laga dhigay dhirteenni xaabada laga dhigay ama qoryaha waa inaanu dib u soo celinaa just fiiri waddankeena way taalaa huruud aan qasnayn huruud organic ah oon qasnayn huruud waxaan arkay Soomaaliya ugu gado milix leh I don't know why ay ugu soo dareen huruud waxaan arkay faaday oo maxaan ku rahdaa faaday waxaa la dhahaa reer Puntland aan ka bartay faaday reer xamaraan ahaa aniga ma aqoonin faaday waxaan ka bartay reer Puntland waxaa laga wadaa huruud maxaa la dhahaa oo maxaa la dhahaa ii sheeg afki xamar maxaa wixii lagu dhihi jiray boloshay miyaa ma ogi maxay ahayd huruud oo wax badan meel taashay adiga iyo malab intaasaan mariyey oon u isticmaalay waa kaa dib u soo baxay geedkan noociisi weeye waad intusay hadda marka geedkan ayaantii hore kulli wuxuu u wada ekaa binkigaas waa xasuusataan marka ayaan dhaweyto saanuu noqonayaa saan markuu noqdo way dhacaysaa caleentan way green ay noqonaysaa kadib waxay noqonaysaa sidaas way madoobaanaysaa way dhacaysaa markaa waxaa soo baxayo kan kalarkaas quruxda badan oo binkiga ah ayaa soo baxaya again
waa ujeedaan kalarkaas quruxda badanaa soo baxaaya mar labaad kan hadda waa kusoo dabaxigaa kan waana kusoo dabaxigaan way dhacayan kuwo kala soo baxaaya mid kale wakaasaa hoosta ku jira cusub oo kasoo baxay kuwo kale hoostaasay soo baxayaan uma arki kartaan way yaryar yihiin caleemo cusub waa kuwaana iyo caleemihii hore waa ujeedaa caleemo kale cusub oo yaryar ahna wuu soo bixinayaa hoostana caleemo kale wakaa hoosta si caleemo kale cusub iyo laan cusub wey marka sidaasaan u beeray geedkan walaalayaalow marka waxaan idin leeyahay ka faa'iidaysta dhirteeni baaba'day qofkii raba geed kasta uu jecel yahay qof walba oo uu raba inuu dib u beero wuu beeri karaa laakiin waxaa jira oo kale bahal kale aniga hadda maalintii dhoweyd ma isticmaalin bahal kale waxaa jirta wax chemical camal ah oo kale looma ma jecli aniga laakiin waan soo iibiyey waxaan try dhahayaa insha allah dhulkeeni Soomaaliya waan soo iibiyey waa new ma isticmaalin waa new waa ujeedaan waa new ma isticmaalin waxaan rabaa inaan dhulkeeni geedihii dabar go-ay aan u isticmaalo iyadana try dhaho bal inay soo baxayaan insha allah wax walba waa laga war doonaa waa powder waa ujeedaan routine ayaa la yidhaha natural routine powder waxaa weeye again ayay dhirta ay kusoo baxaysaa bay leeyihiin waxyaalo badanaa meeshan ku qoran marka waxaa weeye tan uma isticmaal maalintidood waa ujeedeen labadaana isticmaalay wuuna soo baxay waa ujeedaan marka waxaa weye walaalayaalo ka faa'iidaysta Soomaaliya kiimikada kaas powderka waxaa uga fiican kuwana ka fiican kuwan aan isticmaalna anaga kuwan aan haysanaa kaas waxaan u malaynaa dhulkeena ma yaalo cidda u baahanna maxaan ku idhahdaa ha soo iibsato ganacsatada ha u keenaan maxaa la yidhaahdaa ishag ganacsi ahaan si dadku uga iibsadaan try hala dhaho in lagu beeri karo hala try gareeyo dhirteeni aniga waxaa jirto dhir aan ku beeray kaasna way jirtaan waan iska tuuray because waxaa weeye dhirta waaweyn oon halkan lagu hayn karin gudaha waan iska tuuray wuxuu ahaa maxaan ku idhahdaa geedkan la yidhaahdo Christmas tree-ga ayaan ku try gareeyay bahashaan wuuna soo baxay Christmas tree-ga wuu ii soo baxay laakiin aniga ma ku hayn karin halkan marka isagoo yar intaan la eg ayaan iska tuuray qashankan iskaga riday marka walaalayaal oo dhirteeni quraci iyo qansaxi iyo galoolka iyo maxaan ku idhahdaa all dhirteeni garaska iyo maxaan ku idhahdaa ishag kulli ibaan maxaan ku idhahdaa muxuu ahaa magaciisa dhir kaloo badan oo jirta kulli ha lagu try gareeyo bahalkan labadaana ha la try gareeyo huruudda iyo malabka waa kasaa proofki waa aragtaa wuu soo baxay way soo saaraysaa huruudda iyo malabka waa ujeedaan marka waxaa weeye soo dhawaada channelkayga waxaan idin leeyahay soo dhawaada ka faa'iidaysta beeralayda ha ka faa'iidaysato dhirtii hore ee naga luntayna ha la soo celiyo sidan ha loo beero kan baani waan beeray kuwa kala badan oo beeray baa jirtaan tuura waa idinkaga shekeynaya marka waxaa weeye dhirta waa muhiim ha la soo cesho walaalahayga Soomaaliyeedo ubaxuna waa qurux badan yahay indhuhu u fiican yahay qalbigu u fiican yahay wadnahu u fiican yahay yaa nafta ku dagta ubaxyadan ha la beero Soomaaliya wadankeena ubaxyadu way ku yar yihiin marka waan salaamayaa ku soo dhawaada proofki waad aragtaan welcome to my channel waa ujeedaan proofki welcome to my channel maxaan ku rahdaa share comment subscribe thumb up please beeralayda Soomaaliyeedna ha ka faa'iidaystaan waa ujeedaan proof bye